السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan khiyaartiitu waan idin salaamay. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sideed sharing aad ugu samayn lahayd dvd-gaaga adigoo isticmaalaysa network sharing. kaba soo qaada kale waxaa laga yaabaa computerkaaga kale markaa isticmaalaysa inuu dvd-ga ka halaysan yahay ama cd ku xiran yahay, aad rabtid inaad ku shubid sida window xp ama window 7 ama vista. dabcan ma ku aqbalayo hadda cd room kugu xiraya, marka waa inuu dvd isticmaashid. marka waxaan sameynaynaa computerkana hadda aan isticmaalayno ayaan fiirinaynaa waa computer fur. kadib waa ujeedaa inuu ku jiro window 7 ku jiro. markaan double click siino waxaa kusoo kacayo window 7 sidaan u aragno inuu window 7 yahay. marka window 7 kan aan isticmaalayno waa ujeedaa inuu window 7 yahay. marka waxaan rabaa computerka kale oo xp ga ku jiro oo axmed shafeec ah inaan ka isticmaalo computerkan dvd-giisa inaan isticmaalo. marka right click ayaan leeyahay, waxaan tagaa properties ayaan tagaa, kadib waxaan leeyahay share ayaan leeyahay, advanced share ayaan leeyahay. kadibna dabcan vistaha iyo window xp window 7ka vistaha iyo window 7ka waa isku mid, isku step ayaa maraysaa. kadibna permission ku dhufo, kadibna waxaa leedahay add dheh, kadibna waxaa leedahay meesha waxaan ku qoraysaa no everyone, kadibna check name aa leedahay, kadibna okay ayaa leedahay. macnaha hore ugu jir laakiin hadda stepka maraya hore aan kusoo celinay. kadibna apply dheh, haddana okay dheh, kadibna apply dheh, haddana okay dheh, kadibna close iska soo xir. marka waad ujeedaa in uu hadda sharing yahay, oo macnaha waa ujeedaa inuu window 7ka inuu sharingkiisa sidaas u sameeyey. marka hadda waa ujeedaa dvd inuu yahay e la soco. haddii aan double click siiyo waxaa ujeedaa in uu soo bixi doono window 7 oo soo baxayo. bal aan fiirino sidaan u hubino inuu canjalada window 7 tahay in kale oo school window 7kii hadda uu soo baxay. markaan close aan iska dhahno, marka waxaad ogaanaysaa markaan iska xirno waxaan rabnaa inaan aadno window xp ga rabnaa in aad computer kale axmed shafeec. okay